السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة عافيمات تاما يعني ذي رجينا يا ورلها شرفت بدن شفا يدو آدي المهم وفي الفشل لقهلو أي نفسه قاعدنا مقالكم انتينا شد فايدة وكذا قرين مركا كوباد وحاين ويغينا أرنتن في الفش وحاين لا هاي مركا كوباد كمبن عرية لغو مقعابو بيبرين والله فالقلا شركة ساميانا قابكا شركو برسيس كرين ايو مركا اينو دوادا قادن مركا هدي الدوا قادن ايسو استعمالك الاستعمال ايسو في الفشا وين ادكالات شتا دختر اما وين اسكا دايسا waxaan filayaa halka inaynu si fiican iskula fahanay filfishan waxa ay leedahay compoundkaas waxa uu saameyn karaa qaabka jidhku u process gareynaya ama jidhku u isticmaalayo dawada waa marka aad dawo qaadanayso marka ama waad iska dayn doontaa ama waa inaad dhakhtar kala tashataa aynu ka nimaadno faa'iidada caafimaad ee ay leedahay filfishu aynu nimaadno markaynu intaa ka nimaadno marka kooban filfishu waxa ay leedahay compoundka la yiraahdo pepperin waxaanu ilaaliyaa oo uu ka hortagaa liver damage ka ama dhaawaca ku yimaada beerka ibnaadanka gaar ahaan marka dawooyinka la isticmaalo sida dawada paracetamol dhaawaca ka inaga yimaada dawooyinka aynu qaadano ama dadka inta badan aadka u qaada dawooyinka xanuun baabi'iyayaasha sida paracetamol dhaawaca ay u geysato beerka ayay filfishu inaga qabataa oo ay inaga difaacdaa oo ay inaga ilaalisaa iyadoo isticmaalaysa compoundka la yiraahdo pepperin faa'iidada labaad filfishu waxa ay leedahay compoundka la yiraahdo pepperin waxa uu ka hortagaa kacsiyarida waxaanu saru qaadaa kacsiga ragga waxaanu hagaajiyaa hormoonka leeyahay testosterone ee ragga ayuu fiinaysiyaa marka filfishu waxay u fiican tahay dareenka ama kacsiga ragga ayay aad ugu wanaagsan tahay iyadoo dareenkana saru qaadaysa hormoonka leeyahay testosterone kana saru qaadayso oo increase gareynaysa marka faa'iidada labaad waxay u wanaagsan tahay raganimada dareenka raganimada iyo hormoonka raganimada ayay u fiican tahay faa'iidada saddexaad sida aad ka aragtaan qoraalkan filfishu baris iyo dabagal iyo research lagu sameeyay ayaa waxa uu muujinayaa maadadan ama compoundka la yiraahdo pepperin ee ku jira filfisha inuu faa'iido caafimaad u leeyahay inuu manage gareeyo xaaladaha caafimaad ee sida cayilka saayidka xanuunka macaanka iyo dhaawaca ku yimaada ama xanuunada ku yimaada beerka ee ay sababaan alcoholku beerkeena dhaawacyada ku dhaca qaar baa virus sababa qaarna dawooyin baa sababa qaarna waxa sababa in marka alcohol qofku isticmaalo marka dhibaatada alcoholku uu beerka ku sameeyana faa'iido caafimaad buu leeyahay oo waa uu ka hortagaa ama dhibaatada beerka ku dhacaysa ayuu ka xalliyaa waxa kale uu fiican yahay xanuunka diabetiska ama xanuunka macaanka sidoo kale cayilka iyo buurnaanshaha iyo miisaanka inuu hoos u dhigo oo cayilka iyo buurnaanshaha saayidka ah ee obesity-ga la yiraahdo ayuu jidhka kala dagaalantaa filfishu iyadoo isticmaalaysa compoundka la yiraahdo pepperin faa'iidada afraad faa'iidadani waxa ay tahay filfishu waxa ay leedahay compoundka la yiraahdo pepperin oo muujiya isaguna inuu yahay anti cancer ama kansarka inuu ka hortago gaar ahaan kansarka ku dhaca naasaha sanbabada iyo qanjirka la yiraahdo prostate-ka waxaanu sameeyaa in tumarka ama unugyada
uu kansarku effect gareeyay inuu qabto in koritaankoodu uu bato oo markaa ay weynaadaan oo kansarkii uu sii faafo oo meesha ay sii bulsho ayuu ka hortagaa faa'iidadana way leedahay filfishu iyadoo isticmaalaysa compoundka la yiraahdo pebrine faa'iidada shanaad xilligii hore ama traditionally waxa loo isticmaali jiray filfisha iyadoo laga faa'iideysanayo compoundka filfisha ku jira la yiraahdo pebrine illa iskaga daweeyo xanuunka ama painka oo pain relief ay ahayd ama waxa laga reysan jiray xanuun baabi'iyo dabeeciya bay ahayd waxa markaas waliba xanuun baabiyaha ay ahayd meeshii loo isticmaali jiray ama meelaha markaa laga reysan jiray waa xanuunada ka bilaabma rheumatoid arthritis ama meelaha inta badan kala goysyada iyo meelaha iyo other inflammatory ama xanuunada kale ee jirka ka bilaabmaba xanuunkaas ayaa laga reysan jiray xilliyadii hore oo qaabkaas la iska daweyn jiray oo faa'iidada noocaas ayay lahayn intaas aan ku soo ururaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.